بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. كلنتي وعن داود يال مر لبعض إن شاء الله. ما أنت ألقى محينو كبلا بدونا كورس عصب ومجلس اللي هذا introduction of networking أما هردعة networking إن شاء الله 10 كان يوحي دورك 10 كدم بيا حنو كجاه اللي دونا هي basic networking ama asaaska networking-ka inagoo markaa kadibna markaynu basic-ka ku fargarin hadii la yiraahdo u gudbi doona advanced networking. magacaygu waa Saad Khaliif. insha Allah isla socod wanaagsan. su'aasha ugu horeysa ee isweydiin kartid marka aad maqashid network waxay noqonaysaa network muxuu yahay. network waxa lagu qeexaa a network consists of two or more entities or objects sharing resources and information. networku waxa uu ka kooban yahay laba iyo wixii ka badan oo computer ah ama objects ah kuwaasoo sharing sameynaya share gareynaya waxa la yiraahdo resourceska iyo informationka. si guud network wuxuu ka kooban yahay laba computer iyo wixii ka badan. haddii aad hal computer haysatid micnaheedu waxay tahay network ma sameyn kartid. labo iyo wixii ka badan ayuu ka bilowdaa kuwaasoo sharing sameynaya resourceski iyo informationki khayraadka ay haysteen iyo xogtii. resourceska share gareyn karaan waxaa ka mid ah like printeriska oo kale, waxa la yiraahdo qalabada yaryar ee kale cableska dhan, sidoo kale informationka barnaamijka la isticmaalay xogtii waxyaabahaas oo dhan. tusaale ahaan labada qof ee dadka caadiga ah real life-keena caadiga haddii aad tihiin laba qof tusaale ahaan oo kale waxa laga yaabaa inaad network sameyn kartaan oo wada sheekeysan kartaan, isfahmi kartaan. laakiin dad kaliya tahay maybe laga yaabaa in lagu yiraahdo ninkii uu waashay haddii aad isla sheekeysanaya lagu maqlo. marka network wuxuu ka kooban yahay laba computer iyo wixii ka badan kuwaasoo share gareynaya resources iyo information. computers on network can act as a client or server. computerska network ku jira waxay u dhaqmaan as a client or server. client waxa la yiraahdaa waa qofka wax codsanaya userka caadiga end userka wax isticmaalaya. serverkuna waa meeshii wax ka codsanayay ee u soo jawaabaysay. salaam markaad wax u baahan tahay adigu aad user tahay internetka markaad wax ku qortid serverka ku soo jawaabaya ayuu noqonayaa serverkun. adna waxa tahay client-iga. a client is a computer that requests for resources. client-igu waa computerka codsanaya resources inuu helo. serverkuna waa computer that controls and provides access to the resources. waa computerka control gareynaya isla markaana provide sameynaya oo ku siinaya resourceski aad dalbatay. needs for networks. maxaynu ugu baahannahay ama baahiyaha network meenu iska badayno network maxaynu ugu baahannahay network. dhowrka qodob waa qayb ka mid ah qodobada aynu ugu baahannahay. qaybo kala jiri kara. qodobka koowaad waa enhance communication, inaynu hagaajino ama enhance ku sameyno communication-keeni wada xiriirkeeni ama wada socodkeeni. qodobka labaad waa share resources, inaynu share gareyno resourceski aynu haysanay. hardware-ki inaynu share gareyno oo qodobka xiga. isla software-ski inaynu share gareyno. sidoo kale information-ka qudhiisii inaynu share gareyno. qodobka ugu dambeeya waa facilitate centralized management, inaynu dadejino kala ama aan sameysano management centralized oo meel laga maamulo oo server la micno.